السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا قالي كسو دواده channel keena caafimaadka iyo qurxinta channel. maanta waxaan ka hadli doonaa sidee baad u heli kartaa timo qurux badan oo wanaagsan. waxaan halkan idinku soo gudbinayaa talooyin quseeya xagga timaha, siday timahaad u noqon lahayn kuwo qurux badan, dhaadheer ah, shine leh, aana ka jajabeynin. balse marka inta ka horeyso waxaan idinku codsanaynaa fadlan haddaan ugu cusub tahay channelka subscribe noo soo dhaha, share inoo dhah si dad fara badan u gaaro, comment iyo like-tana waa dhiirigelintiina. ku soo dhawaada barnaamijkeena. maanta waxaa uga hadli doonaa sidee baan ku heli karaa timo qurux badan oonan iga jajabeynin. marka hore waa inaad timahaada u doorataa product ku wanaagsan timahaada. haddii ay yihiin timahaada timo qalalan waa inaad product ku wanaagsan u doorataa. haddii ay yihiin timaha timo jajabay waa inaad product ku wanaagsan u doorataa. waa shampoo iyo condition iyo nafaqadiisi iyo maxay ahayd waa inaad u soo iibsataa insha Allah, si oo madaxaada u noqdo mid leh hal product oo kaliya. sidoo kaleeto maalin walba ha ku dhaqin madaxaada shampoo. maalin walba haddaad madaxaada shampoo ku dhaqdo waxaad timahaada waxay noqonayaan kuwo qalalan oo saliid ka dhamaato. marna waa inaad condition ku dhaqataa. inta badan waa inaad condition isticmaashaa. aadan shampoo inta badan madaxaada ku dhaqin si uusan kaaga noqon dry. okay, waa inaad nafaqada madaxaada ku haysaa 2 ilaa 5 minute. kabacdina aad ka dhaqdaa. markaa shaambada ku dhaqdo kadib waa inaad condition marsataa 2 ilaa 5 daqiiqo 2 ilaa 5 minute. kabacdi waa inaad ka dhaqdaa. sidoo kaleeto madaxaada waa inaad saliidaysaa regularly, si joogto ah waa inaad madaxaada u saliidaysaa. haddii aad tahay dadka madaxooda dryga ah oo qalalan mar walba qaleelka ah, ha dhaqin madaxaada hadduu qaleel yahay adigoona marin saliid 1 hour ka hor. yacni madax haddaa leedahay madax qalalan oo timahaada yihiin timo qalalan oo jactada, mar walba aad madaxaada doonayso inaad dhaqdo waa inaad saacad ka hor aad saliid marisaa. saliidaas ha ahaato saliid qumbe, ha ahaato olive oil, ha ahaato almond oil, argan oil ha ahaato. ku masaajay ku duub ilaa iyo 1 saac. kabacdi ka dhaq madaxaada. waa inaad madaxaada u isticmaashaa maaskigaasna ma ahan mid maalin walba aad marinaysid. maaskiga aad madaxaada u isticmaasho oo goonida ku ah waa inaad weegi 1 mar aad isticmaashaa. ha ahaado mid aad gurigaada ku samaysatay ama ha ahaado mid asigoo samaysan aad soo iibsato. okay, sidoo kaleeto haddii aad rabto madax toosan aan dhehe timo toosan, aan dhehe timo toosan oo kaa jajabeynin, qaleelka ahayn oo kaa siibaneynin, waa inaadan u isticmaalin madaxaada biyo kulul. mar walba waa inaad ka fogaataa inaad ku dhaqdo madaxaada biyo kulul. madaxaada waxaad ku dhaqataa biyo qandac ah. qandac dad waxay u yaqaaneen biyo aan zaa'id u kululen, qabowna aan ahayn oo aad iska dhexaado jirka xamili karo, ama cold water. inkastoo aad u wanaagsan yahay cold waterka timaha. sidoo kaleeto madaxaada haddii aad mariso conditioner oo doonayso inaad ka dhaqdo waa inaad ku dhaqdaa cold water. biyo qabow waa inaad ku dhaqdaa after conditionka. waa inaad ku dhaqdaa biyo qabow. mar walba timaha qabowga ayaa u wanaagsan. sidoo kale daawo ahaan madaxaada haddii aad saliid u isticmaalayso waa inay saliid ahaataa mid qandac ah oo xoogaa kulul. treatment ahaan markaad doonayso inaad u isticmaasho. saliidda waxay rabaa dabka waad diirinaysaa. waxyar markay diiranto madaxaada ayaad ku masaajeynaysaa. ayuu saliidda isticmaasho coconut oil, olive oil, castor oil, si wax walba ha ahaato waa inaad si wacan aad ugu masaajeysaa madaxaada.
يعني دقيقة ير كم مساجي تريتمنت ahaan weeye taas marka aad baa u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iidi doontaan talooyinkan ku saabsan xagga timaha ah maanta idiin soo gudbinay aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin